Today, waxaan kaga sheekeynayaa my dhaqan celis story in Somalia. So let me tell you about my dhaqan celis story. Wallahi, my dhaqan celis story is everything. Like, shaahiga kaafakaniya because it's so funny. So basically, maxaan dhihi jiray fiilaana ka tagnay. So aad u faraxsan. I was like, oh my god, man Soomaali soo arkaysaa, like bisinka tabaaraka fiilaana ku urnay, like we need to like in our Soomaali soo arkaa rabay. So Somalia diyaaradaha, like, you know, if qof walba dhaqan celis aad is just saying like marka Europe ka sii degdid asma lu soo socdid diyaaradaha inta ka baxay ugu fiican markii oo Djibouti ka sii baxay like tamara ina Allah, oh my god, diyaarada ka sii daranta la sii raacaya ba beriga waxay ahayd ogaadaya. It was like sagaashankii ahayd, so it's not like had obviously it's bedeshay everything, but ana markaan bixinay it was a bit struggle. So Muqdisho ka dhacnay. So Muqdisho maanta ka dhacnay. It was really nice. Horta dadka waxa like aabahay iyo dadka oo qaraabada ila socdeen ma ciyaalka la siin waxa oo jidka lagu gadkada isna anu waxa rabo like, you know, holiday marka jidka like television conference everybody is like, oh my god, street food inta qabso. I was like, wax walba raba oyna like warka joog dalab like ambe oo basbaas lagu sameeyay iyo maxay kala cunay iyo bahal wareegsan oo kubada sisin ala dhaha sa u fahmay iyo sambus iyo bajiya iyo basbaas like wax walba cunay. Next day 3 days sick ala maxaa dhahay qaras ma ayuu ka maqan. I was like sick. And then tan ugu qosarka badan waa marka you know marka Finland maxaa wadamada Scandinavia ama Europe kortid, you don't have Soomaalida badan ma haystaan xayawaano guriga ma haystaan. So Soomaali markii noo celiyay waxaan dhahay wanqala like birthday ama Soomaalida birthday ma dhigato, dhalasho ma dhigato. So waxa waaye sanadkii marka dhalatid wanqala lagu sameeynaya. So wanqalkii neefaan loo keenay, walaalka neefaan loo keenay, aan neefaan lii keenay. So markuu noo keenay, he was like, neefkan adiyaas kale. Do you know how happy like dadka oo Europe ku koraa ifahmay? Do you know how happy you are markii lagu dhaxay xayawaankan ada iskale? Because maada u baran in xayawaan obviously yani oo wadamada Europe hooy marka ay rahan dhijino bisada rabnaa oo daal and she like anaba adinka dhan xayawaan kale ma guri keena. So xayawaan ma haysan. So dhaqan celis markii nala celiyay first oo la dhahay neefka ada iskale, I was so freaking happy. Sa u farxna la shay ma u farxin. I was magaca bixiyay. I was like, waxba ka sii fikirayaba marka Finland ku laabatay saaxiibada baraysa ku iskoolka finish ku dhasha baraysa like waxa adinka bisadii ay yaraa wada an neefkan dhan weyn ka wada. Like I was so happy like adduunka la maskaxdayga jiray. So markuu imaaday oo la siiyay, I was like, you know what, xogaa rafu raf because ilkiis taa inta gibtiga neefka ahaayay. I was like, daawada adiga soo qabsaday oo holiday lagu talgalay inaan inta holiday joogna ku cadaysan ahayd. Saan oo soo qabtay adayga cusbaan soo furay. I was like, ilka u dhaqaayay bahalka oo Pepsodent wuu cunaa u laqay. Ana maxaa neefka stop it, it's not supposed to eat like afka ku cadeeyo like sida dadka xayawaanada ula hadlaan inta ula hadlayno. I was like, ilka cadeey dhala ka dhigay dhalo hado jirkiisii waxaan dhahay xogaa cadaan ahaa obviously dhiiqay waxa uu soo marbaadima like I don't know waxaan dhahay inaan cad ka dhigaa so nadiif ka dhigaa like I was qubays ani walaalka u qubeynay. Bismillah soo ekaya. Let me post the picture so ka insoo dhiga soo ekay. It was white as fuck. Kadib maxaa dhihi jiray waa in la seexday ahayd dad badan oo qaraabadii imaanayeen all that. I was like, neefaa lagu siiyay, birthday lagu dhigoya like literally xaflad dhalashada la dhigoya like Somali meeshan waa it's amazing like inaga caadi ma aha. And then
أسيحنا سوير كساك هاي راكع كل هاي مرتا محل تشرينا لونا بحشي I know it's funny but ريا لونا بحشي هذا لونا إنا بيسوسيس مرتا and نحدا هاي markii xaal seexanina wax siinay wax yar iska seexo I was so like so farxadii iga badisay I was like ana soo kacay soo baxay idii iga soo baxday and she was like kala war wiilka beersi hada soo ciyaalka quraacsi asla quraac mi rabi loo rabaa ina maxal dhijiray BSc marka hore aan caws xoogaa and it's like luna yaa waay it's like maalinta rideeda dhan waay luna dhahay way qosashay انت كان بير كذا كسينا ياي بير كذا كسينا تايس انيمال لا اله الا الله محمد رسول الله والله wadnayga maanta soo qaraamay wali carnimadeeda waxay ahayd like naxdintii iigu weyneed ahayd wadnay wuxuu dhahay tig beer kida ku siina maxaa ka wadaa eed awluna way qosashay like ma soo jeedo ilaa ka socdo way qosleysaa like ana kal iyo laab waxay ka tahay like halkayga hado isheeda wax ku dhacday meesha jikada ma arkin oo digsiyaal waaweyn ayaa dadka dhamaan people were like tas it was like qaraabada dhan isku imaatay and I was like something only like ilaa ka socday waxa arkay afar lugood iyo madaxeedii moment of silence wallahi noloshida qaracankii igu horreeyay markaas I was so shocked انت تريه اوهين وراك وساق على سورده ما حدا قد كان لونا اللون وياه it was so bad والله علاش احنا ما والله it was so bad نحدنتي ورثت so عايز كريالي دهين دنكي سومالida xawaaye in neef lagu qalo magac lagu baxsho so I guess nees ka birto qasab waayte so nefta was comes wax kale ma usmin karin I didn't have no choice so actually perked it was so bad wali qasbay it tastes so good but it was so bad oh my god alla naxdin badana ciyaalka dhaqan celiska aad oo saa lagu sameeyay ay fahmaayeen if you relate this story xanuun ku daran samahan it is so bad dadka ma fahmayaan like animal cruelty why like literally حبسي ودمنا الاسكلية حيوانات بس ولا دقنتي but yeah that was like وانقلكي why only سميناي it was horrible and other funny story كل واحد ينطق أنا مركز ديار قصة تغني كهذا حنا يحسن محل نقصد تغني محل بليدوغ لما يلدها it was so rough like أربور أنا عادي حسن لي يعني عادي مقصود إنه بيلي دوغ أربور ده it was rough أفقوي ملاس مكويا لما I don't know where it's like it was rough مل أفقوي كشيء سامر هنا because قارم كسب بحين بير قروح بدني ماشي ده نسميرين but it was rough أربورك كسب سود was like كذا كذا welcome school game دينا مسكوش سوال سعيد good why good تسوي like واحد قال لنا ما هم مسقول قشين وماش قشين لو توروا ما قد كو قاعد wax walba yeah challenge قد كو قاعد wax walba ha okay سرير كسيبه يلا كوره سان like challenge متقن challenge literally سان اشتاغا like نكو قاعد اسكو دي it was mess it was mess نحدينا قاعد تسنك التبارك it was mess مسكوشي and مسكوشي حكاكا سيدران night time مسكوشي day time and night time were different night time مسكوشي سوماليا وحا هايستا درس ويشاركو لديبين وحا واي برامبرو like ملكي ما تماقاني وترادي كبتين all of a sudden مركا مسكوشي قشيت عايز دحل بحسمه you hear all that kind of sound مقلعه بلايد بلان صوب بحسه and I was like لمنولي so basically waxaan samayn jiray aniga waxaan samayn jiray personally ahayd doosha soo qaadanaya habeen wal markii waa inta horta biyahan badsan kar bix musqul ina aadan rabin inta iska yareen jiray so waxa laga wadaa hadda musqul gashid isku diyaari dagaal
so musqushayda aan raaxmi ahayn dadka Soomaali caadi raaxay buu ahayd like break time oo aan break time aan raaxmi ahayn iyo sarfaad so musqusha galaya wax soo qaadan tooshkayga dacas maxaa sameynaya 30 daqiiqo baranbar bis adilooya like literally baranbar adilooya raadinaya baranbar marka dhameeyo as baranbarada way dhamaatay am musqusha dhan nadiifina marka musqusha dhan nadiifiyo kabacdi aan u fariisanaya what I supposed to do rafaadka saxamarichin musqusha Soomaaliyeed si loo fariisto markina oo kadan kood simay dhahan I couldn't like waxma iga imaanayaan waa jimicsi bay like literally waa fadhisaa like lugayga ma ka fikiraa saxiiga sabax ka lugayga xanuunayo this is not nice si raaxa badan u fadhiyay like I don't know musqusha soo ana musqulaha u bartay inaa fariistid journalka soo qabsatid bila wax fadhiis wax iska akhrisid no musqusha Soomaaliya bismillah Olympic waa jimicsi so ilaahay hada dhaqaacid wali dhaqaacilkaas rafaad waxa laga ka wadaa dadkii tagay musqushiina waa u malayn inay fiican tahay hadda Soomaaliya way isbedeshay soo meeshiidan ay noqotay wallahi billahi it was a struggle sorry waxba hilmaamaya so waana soo qabtaa buugiga xusuus qorka and it's obviously blue because blue is my favorite color so xusuus qorka ina akhriyo buugan qof gacan ku dhigay wallahi baa literally waa taajira because story of my life why hopefully qofna gacan kuma dhigay let me read so basically an ayidi la joogo so ay korisa li bixiyay kaska ayidi aad u jaalaan ayidana aad ii jaalaad ma sha Allah ila hadana jaalaan so ayidi wixii geysay dugsi quraan ay geysay dugsi quraan waxa waay Soomaaliya waagaas waxay ahayd loox qad la riiqaayo iyo qalin ma aragday oo sakiinsas you need to like adiga qalinkaaga sameysanahay qalin dukaan laga soo gadanaa ma jiro you need to do yourself so taasna soo bartay فريق سكين واحد بدنا يقصد شجعه قد سيلور ريقو عبرت مطلع lagu sameyn jiray remember dhuxusha oo waa ina raaysan dhuxulaha kale ka qafiifsan waa dhuxusha qad laga sameeyo dhuxusha oo aad dhagax wax qadam ku fiican aan maxaa kale qodka lagu diri jiray horta la miirada sax xasuusto ha qad waxa lagu diri jiray xabag oo geed dukaamada lagu gado ku dhexdeeda soo qad si u noqoto like soo ugu dhago looxa wixii dhamma xasuusto ay ilmaamaya waqti badan ay waqti hore ahayd so lamina another one we the best music DJ Khaled. I don't know if you can take it. No, you wanna see me naked. I wanna be a baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Like a wrist on the ground. Tryna get like this, I can't be rude. xasuuso inaad maxal dhigi jiray comment reebtid subscribe follow me and dhammaan social media waa soo dhigay igu dardarso share garee videogan thank you inaad fiirsatay